بسم الله الرحمن الرحيم. مملكة القومية إيلة بقرطوية قومية إيلة وجد كأنه دب أصنالين تبقرطويين كي هراء بربري دب كابالو فيلا أرو جدي أبابو فرين كسعطة دولة فدرال كصوماليا إيو دولة عالم كشقية هرمر كصوماليا كسعطة بقرطوية قومية إيلة مدنيال سيدا أدلة سعطان بصوماليا وحقيقة كوبانتا هيدور قبيل والبا waxa uu leeyahay beeldeegaameed hoos timaada qabiilkaas waxa sanadihii dambe ka socday Soomaaliya nidaam dawlad deegaaneedka oo ah in lagu qaybsado dawladnimada jirta qabiil ku dhisan nidaamka 4.5 ama 4.5 xilli hore deegaanaysi goboleed oo ku dhisan dawladnimo ayaa ay ka tagtay dalkan dawladii hore ee kacanka qabiilka Eylo waa qabiil aan qarsoomin daahna lagu dabooli karin Eylo waa qabiil ku dhisan nidaam boqortooyo kana kooban dhowr beelood oo isu tagtay deegaanka Soomaaliya Eylo waxa ay ka mid tahay qabiilka ugu faca weyn taariikh aan la koobi karin kula Soomaaliya maadaama Soomaaliya ay ku dhisan tahay nidaamka 4.5 ama 4.5 ee aan soo sheegnay deegaan iyo qabiil walbana uu leeyahay xaq uu asaga u gaar ah u raadsado dawladda taagan Eylo waxa ay weysay xaqeedii ay ku lahayd nidaamka dawladnimo ee hadda socda taasi waxa ay cadeynaysaa in ay Eylo ka maqan tahay xaq dawladda jirtana laga saaray daah aan fidmin sidaasi aweed boqortooyada qowmiyadda Eylo waxa ay go'aansatay in ay raadiso xaqeeda deegaanaysi ujeedaduna tahay xaq la ekaanshaha qabiilaadka kale ee ka jira Soomaaliya ugu dambeyn boqortooyada qowmiyadda Eylo waxa ay u diraysaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha ka shaqeeya horumarka dawladnimo ee Soomaaliya in ay dib u eegis ku sameeyaan xuquuqaha ka maqan Eylo oo ay raadinayso mahadsanidin wada shaqeyn wacan boqortooyada qowmiyadda Eylo taariikh tirsiga 2018 bisha 9aad 16keedii 1440 bisha 1aad 6deedii mahadsanidin wabillahi tawfiiq